maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona الرحيم حبلابنا عشركي صدحات مقايب صدحات بوغا فومك حصار مايني يونت 1 ايان صار مايني ان شاء الله هذا حبلابنا يونت 2 يونت 2 سادو جدي وانك wuxuu ku saabsan yahay system software ayuu ku saabsan yahay marka hadana waxa uu jeeda qows waxa operating system ayaa lagu geliyay qows markaad u fiirsatay system software maxay tahay sidii aynu unit-kii hore ku soo sheegnay system software kan ama qaybtan intangible-kii aan la taaban karin ee computer-ka ka mid ah ama computer programmers kale ama barnaamijyada machine-ka waxaa loo kala qaybiyaa labo waxa la application software iyo system software marka system waxaan ku soo sheegnay software-ka ay ku shaqaystaan machine-ku ku shaqeeyo ama qalabkan la rabo in lagu shaqeysto horta isaga weyn lagaga shaqeysiyaa moogta marka qalabkan shayga walaxda kaga shaqeysiinaya ayaa waxaa la oranayaa system software ayaa la oranayaa marka system software way badan yihiin operating system-na waa la yidhaahdaa system software-na waa la yidhaahdaa laakiin markaad fiirisid system software way ka yara ballaaran tahay حاجة معناها مركز الإيجو operating system because operating system هو وبرنامج كان أما وبرنامج كان ماشين كان أما كمبيوتر كان لو شقيسنا وبرنامج كان كعناية وبرنامج كان معمولية ماشين كجديدة وبرنامج كان فايلش أدوغا أدقشتي معمولية وبرنامج كان برنامج أدوغا برنامج كده بتكون معمولية أيوة على operating system marka system software-ka waxa loo kala saaraa labo system software-ka labo noqonaya mid waa operating system oo machine-ka oo programka machine-ka maamulaya ama computer-ka maamulaya weey tusaalahaan kale smartphone-ka haysatay waxa maamula operating system la yiraahdo Android ayaa maamula computer-da caadiga ama laptop-yada noqdeen waxa maamula programka la Windows Microsoft Windows كمبيوترada ay soo saarto Apple iyagana waxa maamula operating system kale yiraahdo Macintosh ayaa maamula way jiraan operating system kale oo iyaguna hadda ama badanaa dadku hadda isticmaalaan laakiin Linux baa jira Unix baa jira isaguna kuwa hadda berigi hore soo baxay hadda yara dabar go'ay magacooda san jirina way jiraan marka barnaamijyadaas يعني command قرينيا أم أمر يا machine to work أيا وحلا operating system أيا ليه هذا مركا قيبت كلا system software كهوية و utility programs كا هذا سلام كلا each device مركي connect قرينة to another device they need to understand إن يفهمون بالله device لو بهاي يموت marka programkan isfahansiinaya deviceska inay iyagu wada shaqeeyaan work together is not an operating system laakiin waxa la yiraahdaa waa utility programs baa la yiraahdaa marka xaga leh iyagu luqadda ama language-ka computer scientists way isticmaalaan drivers baa la yiraahdaa marka that means system software waxaynu kala saarinaa operating system and drivers labadaas aynu kala saarinaa marka drivers waxa weeye waa programs specific for each component waa program specific for component kasta ay gaar u leedahay weeye ayaa waxa la yiraahdaa driver ayaa la yiraahdaa marka system software waxay kala baxaysaa utility software and operating system ayay kala baxaysaa min amaale okay because the unit will cover the following points concept of operating system iska markaynu taariikhdooda historically yar ka sheekayno waxay ka soo bilaabeen program launch DOS ay ka soo bilaabeen oo disk operating system ayaa laakiin DOS
has developed and became a window window marka labada program Microsoft iska lahayd laakiin waxa ka wada horeeyay oo aan ka daaweynaa programkan Apple-ka oo Macintosh ayaa ka daaweynaa ka horeeyay marka operating system isku waxa weeye waa those bay ka soo bilaabmeen kuwa yani dadka caadiga yaqaanaan dabadna Windows baa ku xigay Windows ka laftigiisu ama Windows operating system isku wuxuu soo maray isbeddelada aad u fara badan buu soo maray oo Windows ugu horeeyay wuxuu soo baxay 1991 iyo soo baxay 1991 buu soo baxay markii ugu horeysay waxaa loo jeedaa Windows 3.1 Windows 3.1 baa loo jeeday dabeedna markii kaas muddo shaqeynayay program cusub oo ahaa markaa crashkiisa iyo waxa sayra fara badan waa la develop gareeyay Windows 95 buu isbedelay haddana waa la sii develop gareeyay wuxuu noqday Windows 98 ayuu noqday haddana wuxuu noqday Windows 2000 and then finally Windows XP and then ugu dambeyn wuxuu noqday Windows XP markuu ka soo gudbay wuxuu noqday Windows 8 iyo Windows 10 iyo kuwaas hadda la isticmaalaa minaha maartay markaad fiirisid yani waa dowskii buu ka soo bilaabmay ilaa uu maanta ka soo gaadhay meesha uu marayo marka waxa weeye waa program waa muddo dheer la soo develop gareynayay la soo taduurayay ciladaha laga soo saarayay la soo hagaajinay hadda markaad u fiirisid markaad isticmaalaysa crashkiisa yani aad buu yar yahay si fiican buu u shaqeeyaa because long history uu soo maray baa ciladihii oo dhan lagaga soo saaray wixii cilad ku jirto waa laga soo saaray wixii cilad waa laga soo saaray minaha maarad marka haddaynu marka concept operating systemku waxaan ugu operating systemska marka Windows ugu muhiimsan programka Windows-ga laakiin programmo kale oo la isticmaalana way jiraan oo sida Linux oo kale badanaa dhulka academic-iska ama jaamacadaha ku arkaysa laakiin shirkada si gaar ah u isticmaalana way jiraan laakiin program taaba galay oo hadda maaragtay reliable oo dadku isku halayn karaan ma aha moogtahay waxa jira marka programkan operating systemka ee Windows la yiraahdo wuxuu leeyahay interface laga galo oo laga maamuli karo ayuu leeyahay oo yani wuxuu ku siinayaa features oo ku siinayaa adigoo aad qaabaysan kartid loogu talagalay inaad qaabaysatid sida salaam kale file manager oo kale oo badanaa file management-iga working with different applications marka laga shaqeynayo yani wuxuu leeyahay salaam kale marka hore markaad machine-ka saa u shidid oo kugu soo furmo waxa kugu soo furmaya desktop-ka marka waxa la yiraahdaa halkan icons ku yaalaan ee machine-ka ka galaysid waxay noqonayaa waa interface-kii laga gelayay operating system-ka marka operating system-ka markaad doonaysid inaad file ku kaysatid waxaa lagu siiyey folder layer documents oo waa mother of the folders waa folderska oo dhan hooyadood weeye marka folderska oo dhan halkaas gashanaysaa documents ku kaydsanaysaa wuxuu kale ku siinayaa systemka inaad adiga laftigaaga qaabaysato setting intaad gashid waxyaalo fara badan oo aad ka qaabaysan kartid siyaalo kala duwan wuxuu kale ku siinayaa desktop-ka laftigiisa ama maaragtay screen-ka inaad bedeli kartid colorska hagaajisan kartid waxyaalahaas oo dhan buu ku siinayaa minaha maaragtay marka meesha ugu adag ee badanaaba kole dadka adduunka jooga had iyo goor ay dhibta faraha badan markaad fiirisay arkaysa waxaa ka mid ah file management-iga dadku aad bay ugu liitaan mashiinkan waxaa fiican in la ilaaliyo faylashiisa loo maamulayo marka faylasha dhan waxaa fiican inay documents ku wada xiran yihiin laakiin si wanaagsan oo order ah oo waliba periodically inaad hagaajisid oo saxsaxsan sidaan meeshu hadii wax walba la iskaga rido moogtahay waxaa noqonaysaa waxa meesha ku jira inaan usable oo laba isticmaali karin moogtahay marka wixii waa rabay laga faa'iideysto marka fayl walba in la arki karo waxa ku jira la ogaan karo magaca loo bixinayaa uu noqdo magac waxa content nuxurkiisa ka tarjumaya weyn uu noqdo marka magaca bixinaysa marka hadii goor meesha loogu talagalay ama file management-iga lagu kaydsan waa documents-ka waxa kaloo la yiraahdaa Windows Explorer waa la yiraahdaa Windows Explorer nada qadan ku soo baxaysa ee Windows aad faylasha ku kaydsanaysid waxa la Windows Explorer baa la yiraahdaa
halkaas faylalada lagu kaydsan marka faylasha sida la isugu hoos kaydiyaa weeye marka مثلا folder waa faylkii guud oo kii guud marka folderka intaasoo faylo yaryar baad gashan karaysaa moogta oo ku kaydsan kartaa moogta marka badanaa marka faylashu ay hal nooc bataan oo kale oo isku nooca hal folder baa loo sameeyaa مثلا waraaqaha aad diraysid oo kale waxaad sameynaysaa one folder baad sameynaysaa minha maaragtay waraaqaha ku imaanayo oo dhan ee emailka ugu soo dhacayo oo dhan iyagana one folder baad sameynaysaa salaam oo kale organization documentska مثلا documentyada organizationka oo kale one folder baad sameynaysaa school documents oo kale one folder baad sameynaysaa say student transfer oo kale one folder baad sameynaysaa oo kale student assessment oo kale one folder baad sameynaysaa oo kale marka waxa weeye student registration one folder baad sameynaysaa marka waa in folder kala duwan la sameeyaa minha maaragtay oo lagu minha maaragtay lagu si loo maamulo faylashaas. Okay, specific objectives at the end of the unit. Unit kan insha Allah marka aynu dhamayno waxaa jira ujeedooyin la hiigsanayo in la gaadho oo aynu doonayno inuu gaadho. Ujeedada koowaad waxaa lagu yiri understand and describe the operating system. Ardayga waxaa laga rabaa inuu sharxi karo isla markaana faham fiican uu qabo oo faham fiican leeyahay waxa la yiraahdo operating systems maxay yihiin. Marka ardayga la weydiiyo what's an operating system waa inuu oran karaa operating system waxa weeye waa the program that commands the machine ka amray ee hawlgelinaya weeye mana isla markaana fududeynaya in application kale ku duuban karto ama warar kale ku duuban karto dale state the function of the operating system inuu ardaygu fahansan yahay what the operating system is do maxay operating systems ku sameeyaan inuu ardaygu fahansan yahay ayaa la rabaa asaas oo kale and demonstrate how to navigate Windows using operating systems iyo si loo navigate means si loo hago minaha maaragtay Windows-ka kala duwan because programkani maadaama magaciisa window la yidhaahdo so every time you open a folder or a file you get a window buu kusoo baxay isagoo daaqad ay kusoo baxay so waana sababta loogu bixiyo window oo maaragtay loogu bixiyo ereyga window waa daaqad weeyaan marka inuu demonstrate how to navigate inuu yaqaano ardaygu sida loo hago Windows-ka kala duwan ee operating system-kaas leeyahay so I can manage files and folders using operating system. Faylasha kala maamuli karo, kala agaasimi karo, kala maareyn karo isagoo operating system ka isticmaalaya. Produce documents, manage images, capture screenshots, make calculations using different applications. Iyo inuu mashiinka ku adeegsan karo wax alaala wixii software isagoo ku duubtay hadday tahay tusaale oo kale inuu document soo saaro word processor isticmaalo manage images in hada pictures farabadan ama images farabadan aad computer ku duubtay inaad maamuli kartid capture screenshots inaad screenka wax saaran capture gareyn karto qaban kartid and make calculations using different applications yani Excel oo kale isticmaali kartid to make calculations aw samayso kale inaad waxyaalahaas oo dhan ardaygu this is the outcome ka laga rabo at the end of the unit marka unit ku dhameeyo ardayga laga doonayo inuu ka soo baxaan weeye waayo content unit 2 wuxuu ka kooban yahay Windows basics or navigating Windows and files intaan soo sheegnay working with applications and Windows sida Windows applications ka loogu duubto waxaa ka mid ah marka programyada yaryar ee iskala socda waxaa jira programyo yaryar oo Windows iskala socda oo loogu talagalay just applications yaryar oo loogu talagalay qofku inuu adeegsado inta uusan barnaamijyo kale ku duubin programyada waxaa ka mid ah Notepad oo u shaqeysa sida word processor-ka painting or picture manager calculator or waxa ku xisaabsanaysay snip and sketch or program you can cutting figures and images on the screen at ku jari kartid weeye waxa soo dhawa barnaamijyada oo la socdo operating system oo qofku adeegsan karo bay ka mid yihiin minamaal waaye methodology-ga ugu fiican ee arday ICT oo dhigay macalinku adeegsan karo waxa ka mid ah discussion demonstration presentation project group work discussion ku dawayna ardaydu ay to discuss the problem, demonstrate that they have to show what they have done. Demonstration, you have to show them when they got to start. Yani say samayn lahaayeen presentation oo in ardaydu soo bandhigaan wixii ay qabteen project-igi inay soo dhamaystireen iyo in group work sameeyeen intaas oo dhan weeye minamaana waaye activity-yadan waxaa laga soo qaatay buugga
sayna hore soo sheegnayna waxaan soo sheegnay activity waa very important way aad iyo aad bay muhiim u tahay macallinkana waa la rabaa inuu ku baraarugsanaado activity muhiimadda ay marka waxaa la rabaa macallinku activity-dan kale inuu ardayga demonstrate gareeyo then they have to work the activity way inay sameeyaan meelaha ayaa laga rabaa marka just an example yani in activity create a new folder namely school by using your right click menu options ardaygu inuu macnaha fahmo sida maartay folder loo sameeyo isla markaana marka ardaygu waxa la rabaa inuu assignment shaqada loo diray inuu qabto oo sameeyaa laga rabaa waayahay macallinkuna waa inuu observe gareeyaa la socdaa activity-gan kale activity-ga kow iyo laba aynu page kale ku soo maray maxaa laga rabaa waxa macallin laga rabaa macallinku maxaa waxa ardayga ka rabaa maxaa kow waxa macallinku ka rabaa both students and teachers should have computers shaqadan kale marka la qabanayo macallinkuna waa inuu computer haystaa ardayguna waa inuu computer haystaa teacher is expected to explain about the need for the proper file management horta marka horeysa macallinku marka activity-gan kale soo dhago have to demonstrate waa inuu tusaa oo muujiyaa sida faylasha loo maamulo the proper way to manage files waa inuu ardayda horta demonstrate gareeya waa inuu tusiyaa teacher demonstrates the creation of folder and subfolders macallinku wuxuu ardayda tusayaa subfolder loo sameeyo haddana folder kale loo sii hoosgeliyo waa inuu tusiyaa student create folders marka ardaydu waa inay folderkii markii la tusay oo demonstration la say they have to do the work waa inay shaqadii sameeyaan folders and subfolders to store their school work according to their subject marka folderka waxaa la rabaa ardaydu inuu noqdo folderka ay samaysteen iskuulka magaciisa la yiraahdo inay hadhow shaqooyinkooda ku kaydsadaan activity 2 oo kale markay samaynayaan seebay u wada shaqeynayaan masalan ilaa waxaynu niri learning kan hadda ku jirna waa student centered moogta marka waa inuu teacher ka tusna how students and the teacher work together man u baahanahay moogta marka activity-gan oo kale teacher should show students how to use a paint tool ma paint brush ko kale loo isticmaalo toolska images ko kale teacher should assist students to practice painting tools macallinku waa inuu ka caawiyaa ardaydu markay practice gareynayaan oo computerka iyagu ku samaynayaan students should draw Somali flag by using the paint tool individually qof kastoo arday waxaa laga rabaa inuu calanka Soomaaliya sawiro isagoo oo paint toolka isticmaalaya ma programka paint brushka isagoo isticmaalaya every student should present his work in the class qof kastoo ardayna waa inuu soo bandhigaa shaqadiisa wuxuu qabtay and teacher should observe and evaluate how the student should draw Somali flag macallinku marka waxaa laga rabaa observation inuu la socdo isha ku hayay oo uu eegayay baa laga rabaa dadna inuu qiimeeyo wixii meesha ka soo baxay minaha maara way assessment waa iyadu 10 kasta markaynu marka assessment waxaa laga rabaa si aad ardayga u qiimeysid lesson-kii aad dhigtay unit 2 ga inay fahmeen you have to give an assignment and they will observation ku sameysaa say u shaqeynayaan group activity practical assignment and test waxyaalahaas oo dhan wada fiirisaa minaha maaragtay ma la socotaa minaha maaragtay way unit 3 wuxuu ku saabsan yahay word processing ayuu ku saabsan yahay word processing waxa weeye waa programka loogu talagalay dokumentiyada lagu samaysto waa programka bedelay typewriter-kii waraaqaha beri hore lagu qoran jiray kana ka saaray booskii marka programka adduunka ugu caansan way jiraan programyada wax lagu qortaa waa badan yihiin laakiin ka ugu caansan ee ugu cajabta badan ama ugu yaabka badan ilaa iyo hadda dee muddo dheer la isticmaalaya hadda waxaa la isticmaalayay ilaa 1990 waa la isticmaalayay ilaga soo bilaabay minha maartay marka waa program yani ay dhowdahay hadda inuu qarni badkii gaaro way ku dhowdahay hadda minha maartay noloshiis minha maartay ay ku dhowdahay way hadda wuxuu marayaa over 30 years marayaa minha maartay soddon sano buu hadda haabanaya marka hadda content waxa uu gala dhigana minha maartay saas oo kale marka waa programkii ka saaray suuqa typewriter-kii waa program loogu talagalay inuu minha maartay marka the basics of the word processing using MS Word waxaa la isticmaalaa programka MS Word baa la isticmaalaa how to create and manage text documents waxaa loogu talagalay programka in dokumentiyada ama dhambaalada lagu qoro functionskiisana waxaa ka mid ah insert delete replace oo kale inaad minaha faylka documentska wax kusoo dari kartid inaad ka delete garan kartid iyo inaad replace garan kartid waa toolskiisa ka mid ah inaad text marka waa editingka minaha maartay
وهذا عندك editing كسمينيسي you can insert you can delete you can replace وكله. An object is format the document, change the layout of the document and print and copy of it. وحيراها سؤال مو كوفض ذي يعني program يا عادي هذا تدخل برتين وتدخل يقانن وحنا من النهاية قف كستان هذا function كيس program بدنا هذا function كده سكوير هنا because سي لو فضد هيو learning program هذا أدونك ولا سكوير دوي ولا سكوير دوي ولا سكوير دوي ولا سكوير دوي program أنت بدنا تدخل هذا أي قرن يعني فانسين الله استعمال موقتها. And it's a very fascinating idea to hersel ويهو في عينها منها مرة. Okay, وجدوين كلاجلي هي مركز 10 كم هوية. Describe the basic functions of the word processing program. أرضي وين يفهمها وهرين وهي أساسيات كاست program كان وشقيه. Apply basic skills إنه يشو skills basic أما حرفة أساسية. And concept is إسلام كان فهم سين دحر كودا to produce suitable document using the Microsoft Word. So صار documents في عن سوى استعمالية Microsoft Word. Define common terms related to word processing. أرضي وينو برتعمل define قرية area فربنا word processing كلها حديدة. Use appropriate keyboard shortcuts to speed up a document creation and editing. أرضي وسيدو كله واحد ربع إنه برتو keyboard functions أما keys إنه سيف عنو استعمالي كرو سو documents وقيل تجريه أما أبورو سير أخسعه. Describe the basic MS Word, Windows and related navigation functions. إنه سيف عن أرضك وشرح كرو program كان Microsoft Word اللي هذا and related navigation functions. هي functions ككلية الله حري ليسا create إنه document create كرين كرو إنه format كرين كرو إنه edit كرين كرو create وحيو document and شيلنا تسميه format نوع عليها 100 شيلنا بقابين كرتي. إدينا واحد هذا إن الواحد بديلك تدابع كرتي save print Microsoft Word سنة كان save قرين كرتي and use the appropriate features when creating a Word documents. إيه أنا استعمال شيء the best features of the Word when you're creating a document. هنا document مركز استعمال features يسوي في عنا استعمال كرتي من عمله. Okay, content is a lesson كده وحوي understand the word basics ولسن كود وانت لسن unit كوكوبين هاي working with text in a text order كرتو دي مارتين document استعمال كرتي working with objects in a objects images pictures in a تكيني كرتي layout and printing in a document كمرك layout كيس design كرين كرتي ورقة انتو كل عيو بحتى ورقة انت بلا جانس ورقة استعمال سواتها ما A4 ما A3 بقى تاسو كله سوا custom يينا دوحي print كرين كرتي وحا صورة منها مارت واي methodology معلنك وباهي إنه استعماله مركو أرضها وحبارة يحكم practical discussion demonstration and presentation وعندي إسكاعدي وين كوهبون أفكست أو معلنه أو أرضها ICT جبريا is a good way وها practically demonstration وسميه then the students discuss and then they present what they have done they will like present كريان صوب بندقان يبغى كلاس كيانا من همار هيا لوجا باهي من همار. Okay, activities can have taken from وحلقة سوقاتي book أي حلقة سوقاتي هذا في رس activity page number 86 حلقة سوقاتي وأنا lab activity وactivity لو ترى قال أرضي to create a document إنه أبوره أو table بوسمينيا سيدا table كالك أقولن أو numbers كله مقايدي مقالوين كي grades كي ساسو كله من همار هذا activity كله كله أرضي وحكي فائدة يعني من همار يعني how to create a table so table لو سميه روبرتو أو كلام مثلا ما كلام. Okay, activity 1 وعلى activity كانوا كان مكلا سمينا يوم حق أرضية معانا كبلوجا بهايا. activity كانوا كان مكلا سمينا both students and teachers should have a computers. هرت الله بدو وين كمبيوتر هايستان. أرضنا وين هايستان معانا كنا وين هايستان. Teacher is expected to illustrate and practice how to create, edit, delete tables in a Windows in a word processing. So كان teacher وحالا قفيرة must be expected. To illustrate in وشرحه and practice سوى practical or دقن قلع وشرحه how to create سلو أو document edit لو دابعه وحي edit وحلو كذا إن هذا documents كلا يمكن كيس بحكي بديلي كرتي وedit اللي هذا and delete table in word processing إذا بدنا وحكي delete كرين كرتي ساسو كلام من عمله using a guided instruction and discussion from teacher إنه معلنكوا أرض السيو instruction guided يعني instruction أرضه حاجية from the teacher when so if you able to create documents using Microsoft Word مركا حاجة ده معلق السيء أرضه يقول أودي يشاهد documents كسر مركا سمعين كرا مركو معلم كهجو
Students should create table one wayna sameeyaan. Insert data xogna wayna geliyaan. Edit into the above the table. Table kana wayna edit ku sameeyaan qurxiyaan hagaajiyaan. And delete the entire table in row 1 and erase entire data in column 2. In a column row 1 na masixi karaan. يعني صفك كواد ساو شيء أنا مسيح كران column 2 أنا مسيح كران column كساو لردنا إني مسيح كران من هذا يعني إني line شيء فتحنا ترتدي كران line شو فتحنا ترتدي كران ساسو كذا من هذا teacher should observe how students are doing their activities معنا كوين observe كريا عرضوا activity جوده والسمينة يه وين ولا صعدا observe كريا يعني عرضوا لك الشغلة قبانية وين ولا صعدا شيء هذا وتسأله ويدين كر يمشي كل تاني وحقوق هذا من هذا So teacher guides students to resource. So كلام معلمك وحاله ربعه. أما براه وحاله كربعه. أعتقد إنه guide كريو. ميله resources كهريانا ميله عوامك كهريان وكلامه وعوده وبهاي هريان. إنه كو guide كريا على كربعه من هماره. Okay assessment تيجي وحوي مركز أرضه هذا بقى قيمين يصير شغلي قبتين يصير أوسو شقيين. وحاله كربعه practical assignment يعني test. إن test إنك قاعدين. سما كان شغل practical assignment يقول درت على كربعه. هم ويب وكله. Observation that ku samaysid presentation dabadna ardo ay soo bandhigaan group activity na la siiyo waxyaalaha soo dhan loo baahan yahay that's an assessment weeye marka waxaan gelaynaa marka unit 4 wuxuu ku saabsan yahay learning internet skills inaynu barano skills fara badan oo la xiriira xagga internetka inaynu barano ayuu unitkani ku saabsan yahay marka internetku waxa weeye waa the biggest network in the world waa network adduunka ugu weyn weeye macnaha marka ardayga qof kasta ardaydu waxay u baahan yihiin marka have to have some skills inay leeyihiin ya sayid u isticmaalaan macnaha so skills for internet include skills marka ardaygu u baahan yahay internetka uga baahan yahay waxa kamid ama xirfadaha u baahan yahay ardaygu inuu yeesho markuu internetka isticmaalayo waxa kamid the internet and website inuu yaqaano website-ka website wuxuu yahay internet wuxuu yahay marka ugu horeysa dan website wuxuu yahay labada inuu kala fahmo internetku de waxa weeye waxa internet waxa leeyahay waa magac guud oo aan network adduunka oo dhan isku xidhaya ba internet la yiraahdo laakiin website marka la yiraahdo every organization has its own website organization kasta wuxuu leeyahay website u gaara ama page u gaaro oo isagu u samaysto oo internet ka dhex yaala marka kaasa website la yiraahdo minaha mala isla markaa weyn yaqaanaado email how to create email and how to send how to receive an email search engines waxa la yiraahdaa programmada wax laga raadsado sida Google Bing programmada iyo Alta Vista iyo kuwa hore dheeraysay machine baabeeniye kale marka waxa jira engines fara badan marka waxa jira company waaweyn oo leh database aad u xoog badan haya ayaa jira oo wax laga raadsado sida Google oo kale ama saas oo kale ama Bing oo kale waxa laga raadsadaa min ama aragtay xogta sida looga raadsado weyn skillskaas ardaygu leeyahay isla markaana internet safety internet ardaygu weyn internetka waxa ka dhaca crimes ama dambiye fara badan baa ka dhaca waxaa la rabaa marka to use the internet safely aan data laga burburin antivirus-ka isaga ilaalin lahayd waxyaalahaas oo dhan baa laga so to use the internet safely internet waxa uu isticmaashaa si safely oo isticmaalnaa maalan also consider the concept of media and information literacy sidoo kale ardayga waxa laga rabaa inuu barto oo fahmo waxa la yiraahdo media waa wixii marka maqal iyo muuqaal isla socdaan waxa la yiraahdaa media as we're doing now and information literacy is the information inuu information kala yaqaan oo kala fahansan yahay sida alphabetka kala taqaanay oo kale in information ka qaabka u dooran lahayd iyo qaabka u raadin lahayd iyo magacaad ku raadin lahayd iyo qaabka loo raadiyo wayna dhinaca literacy fara badan oo information ka ku raadin karto wayna leeyahay minaha qaabab fara badan ama xirfado fara badan oo information ku search gareyn karto hadaa tiraahdo searching wax ka raadin laakiin qaabka wax loo search garaayo de waa problem weeye moogta waayo specific objectives ka la rabo inay ka soo baxaan muxuu yahay unit waxa la yiraahdo the unit learners should be able to explain the basic concept of the internet ardayga waxa laga rabaa inuu sharxi karo internetku wuxuu yahay identify the common available web browsers inuu yaqaano web browser waxa la yiraahdaa waa barnaamijka akhriya web page barnaamijyada akhriya web page ayaa browsers la yiraahdaa hada tusaale kale Google wuxuu leeyahay Chrome waa web browser Microsoft waxay leedahay Microsoft Edge oo kale tusaale kale that's a browser oo kale
hore waxay Microsoft u lahaan jirtay still exist wali wuu jiraa Internet Explorer oo kale waa web browser Opera waa web browser and there is so many web browsers Firefox way badan yihiin meelaha maarta web browsers way badan yihiin marka ardaygu waa inuu yaqaanaa available web browsers yani browsers ka barnaamijyada webka akhriyi kara waa inuu ardaygu yaqaanaa hadday tahay Chrome iyo hadday tahay Microsoft Edge hadday tahay Opera and so many hadday yihiin waa inuu ardaygu yaqaanaa browsers ka waa inuu yaqaanaa meelaha maarta waxaan dhamaystireynaa unit 4 oo internet skills baynu ku jirnay baynu dhamaystireynaa insha Allah waxaan marinay waxyaalaha laga rabo ardayga maxaa kamid ah ama ujeedooyinka la rabo in ardayga laga gaaro ardayda unit waxaanu joognay ardaygu inuu explain gareyn kara the difference between electronic mails and traditional mails may express web pages and explain how to access web page and web addresses inuu ardaygu yaqaano sida web page loo galo iyadoo la adeegsanayo addresska webkaasi leeyahay ama organizationka ama ururkaasi leeyahay explain the difference between electronic mails and traditional mails inuu ardaygu sharxi karo oo kala ogaan karo mailska emailska caadiga electronic hadda aynu isticmaalo iyo kuwa traditionalka inuu kala fahansan yahay saas oo kale explain how to use a search engine ardayga waxaa laga rabaa markuu unit ka dhameeyo inuu fahansan yahay sida search engine loo isticmaalo like Microsoft Google oo kale iyo Bing oo kale sida warka looga raadsado ama xogta looga soo baxo waynu fahansan yahay use fast facts in Google search engine inuu waliba Google-ka aad u yaqaano waayo waxa weeye waa database adduunka ugu weyn ee xogta laga soo baxo marka waynu si fiican u yaqaanaa demonstrate the techniques of internet safety ardaygu waa inuu muujiyaa oo laga arkaa waa inuu demonstrate gareeyaa waa in laga arkaa inuu ability u leeyahay inuu macnaha inuu leeyahay techniques lagu isticmaali karo internet safely in internetka la adeegsan karo waliba si safely loo adeegsan karo describe the fundamental media and information literacy yani inuu describe gareyn karo waxyaalaha asaasiga ah ee ku saabsan media-da waa maqalka muuqaalka iyo information literacy-ga iyo terminolojiyada ama ereyada la xiriira information system-ku inuu aad u yaqaano ayaa inuu waxaas oo dhan muujiyo oo laga arko ayaa ardayga laga rabaa minaha maalin contentiska unit-keenan aynu hadda ku jirnay oo internet skills-ka wuxuu ku saab waxaa weeye unit-ku wuxuu kala baxday internet and web inuu ardaygu yaqaano internet and website internetka waxaan ku soo sheegnay waxaan waxa weeye waa network ama isku xidhaha weyn ee adduunka website-kuna waxa weeye waa page-ka organization kasta ku leeyahay emails waa page-ka la isugu diro waraaqaha search engine waxaan oranaynaa meesha waxa weeye waa website-ada database-ka faraha badan ayaa sida Google oo kale xogta laga raadsado internet safety waxa weeye to use an internet safety demonstrate internet safety loo isticmaali karo media and information literacy waayo methodology-ga macallinku marka uu adeegsan karo marka uu casharkan ICT-ga internet skills-ka u dhigayo ardayda waxa discussion inay maaragtay topic-yada kala duwan ee ay ka discuss karayaan isla markaa demonstration in la tusiyo isla markaa practice inay sameeyaan meelaha maaragtay saas oo kale meelaha maaragtay macallinka looga baahayo activity-yadan activity-ga kan waxaa laga soo qaaday activity-ga koowaad page 117 activity-gana waxaa laga soo qaatay 121 marka labada activity oo kale laga shaqeeyo maxaa macallinka looga baahan yahay maxaase ardayda looga baahan yahay bal aynu eegno mid kasta waxa looga baahan yahay okay while teachers and students should have resources including computer horta labada qolob waa inay computer haystaan teachers are expected to arrange the students in a group macallinka waxaa laga filayaa ardayda inuu group ka dhigo koox ka dhigo oo qaab ay start discussion about the social media dabadna ay bilaabaan discussion ay bilaabaan each group should have a group leader note taker and presenter sidii hore aynu soo sheegnay group kasta waa inuu leeyahay leader waa inuu leeyahay iyo qof wax u qoraya labadaba teacher should select presenters randomly dadka hadhowto class-ka raba inay wax soo bandhigaan waa in si loo doortaa randomly waa in loo doortaa teacher should facilitate and encourage students maalinka shaqadiisu waxa waa facilitation waa hawlihii buu kala fududeynayaa ardadana wuu dhiirigelinayaa activity-ga labaad maxaa macallinkii ardada looga baahan yahay markay sameynayaan teacher and students should have resources such as computer devices and internet intaasoo dhan weyna haystaa internet weyn la hayaa teacher is expected to arrange his students in groups macallinka waxaa laga filayaa
inuu marka hore ardayda group iyo koox ka dhigo. Each group should have a group leader, note taker and presenter waa inuu leeyahay. And so on saasoo kale minaha maarta marka this is waxyaalaha lagaaga baahan yahay marka activity-gan la sameynayo waxyaalaha macalinku u baahan yahay inuu sameeyo oo la helo si activity-gan sidii la rabay ay ugu dhacdo minaha maarta. Why assessment and exercises marka ugu dambeysay unit ku dhamaado assessment waxaad ku sameyn kartaa assignments inaad u dirtay ardayda, observation inaad u fiirsatay say u shaqeynayaan, group work activity inay jirto iyo practical assignment. waxyaalahaas oo dhan waa siyaalaha aad maaragtay u qiimeyn kartid. ugu dambeyn casharkeena waxaan ku soo gabagabeynaynaa principleska learner centeriska ama maaragtay qofka maaragtay mawduucan dhigana waxaan waa learner center ama student center ardayga baa wadum lixaad ma ogtahay yani principleska kooban waa selka ku saas u socda waa intaas weey casharkeena ama buugeena taasina ku soo gabagabeynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmi